wiil dhalinyaro youtuber ah ayaa ka yaabsaday caalamka kadib markii uu aruuriyay lacag ka badan 10 milyan oo dollar muddo toddobaad ah oo uu ku jiray qol yar oo muraayado ka samaystay kaas oo ka dhisay aaga dhismaha caanka ee Burj Khalifa ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta. wiilkan ayaa lagu magacaabaa Xasan Suleymaan, laakiin magaca loo garan og yahay dhanka YouTube-ka ayaa ah Abu Falaah. waa 23 jir ilaa haatan aan la aqoonsan jinsiyadiisa saxda ah, balse inta badan dadka ay yiraahdaan inuu yahay shakhsi Soomaali ah. waxa uu ku dhashay kuna soo barbaaray dalka Kuwait. waa youtuberka ugu subscribe ka badan dhanka Carabta, isagoo haysta in ku dhow 24 milyan oo subscribe. Abu Falaah markii uu dhameeyay dugsiga sare ayuu bilaabay isticmaalka YouTube-ka sanadkii 2016, isagoo oo soo gelin jiray geemanka gacanta laga ciyaaro ee dhalinyarada aadka u xiiseeyaan, gaar ahaan PUBG oo uu aad u ciyaari jiray. balse markii uu helay asxaab badan waxa uu u weecday caawinta dadka masaakiinta ah, isagoo oo masaajid ka dhisay dalka Mozambique. 1000 qofood oo arag la'aan waxa uu siiyay fursad qaliimo lacag la'aan loogu sameynayo. sidoo kale muddo 24 saac oo xiriir ah oo live ku jiray ayuu ku soo aruuriyay lacag ka badan 1 milyan oo dollar, isagoo ku tabarucay lacagtaas dadka masaakiinta ah ee baahan. hadda ayuu qabsaday mar kale shaashadaha caalamka kadib markii uu yimid dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo qol yar oo muraayado ka samaysan uu ka dhistay afaafka hore ee dhismaha Burj Khalifa. waxa uuna sheegay in uusan ka soo bixi doonin qolkaas ilaa uu ka helo 10 milyan oo dollar si uu ugu caawiyo 300 oo kun oo qoys oo Afrika iyo Aasiya kala jooga. يا جماعة الله يجازيكم بخير بخير. ب50 دقيقة يا جماعة جمعنا 53,000 دولار وتكلفنا بعلاج بإذن الله الواحد الأحد 409 ب50 دقيقة. اعذروني اللي قاعد أبكي يعني صارت أشياء بالبث يعني ما قدرت أتحمل يعني. شكرا لكم. ugu dambeyn waxa uu ku guuleystay hamigiisa, waxaana hadda hambali u diraya madaxda caalamka oo ku aadan shaqada wanaagsaneed ee uu qabtay, isagoo oo ilmeeyay markii uu helay 10 milyan ee uu rajeynayay. dad badan ayaa isugu soo baxay dabaaldegiisa. guushiisa ayaa ximbaarsan u gargaaridda dadka masaakiinta ah ee dhibaataysan. waxaa lagu qoray buugga lagu qoro dadka jebiyay rikoorada dunida.